ما jira haddaad isku aragtid aad khatar ku sugantahay qafladii waa soo socotaay ee ilaali maxaa kamid ah qaflada calaamaadka lagu yaqaan waxa kamid ah takaasul aan taa'at dad aragto qofko ka caaj haddaad naftaada aragto iyadoo marka cibaadada iyo taacada la soo qaadana ay caajis iyo wahsi iyo hamaansi bilaabayso marka sheekada iyo hadal tirada iyo tirrabta la wadana ad nashiid iyo qof firfircoon oo soo jeedo aaraa badan oo hadal fiican oo warramaya aad noqoto ogsoonow xanuunku bilowgu kugu yihi waa wax kamid ah acraadi sida awgeed nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisu waxay tilmaamayaan wax xaqiiqan u eg مثلا القرآن كإلهي وحليه منافق بكي لسفينه ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إلهي وحط المامة سبحانه وتعالى الصفة منافق لماذا قلبي يدكته قرن ما يسيادوه قفكم منافق بما مؤمن بوحى قلبي يسكجره لكن منافق لماذا مركي قلبي يدكته أعراض سمت مسك حمضة كم مقارنة كو قياسي ساد رأي زكري وحق أسوسي جنجيرا وحويا بين هيلي لا يأتون الصلاة إلا وهم كسال صلاة ما يمدني وعاجسة وكل بتهيم ويان هل كي النبي محمد عليه الصلاة والسلام صلاة ضايا واحد مركي دبت قفصة ماشوا معي صدقة أرحنا بها يا بلال لها استعينوا بالصبر والصلاة إلهي القرآن كقلت المامي إذن هذا تركته adigoo jumca iyo jamaacadka jarjaraya waa mushkilad waa calaamo kamid ah calaamaadkaas sadaradeed buu nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim ku yaala duul ka tageen yani jumca ka tagistooda joojiyeen ama se ilaahi subxaanahu wa tacaala la yakhtimanna allahu calaa quluubihim ilaahi baa qalbigooda dhababi doona kadibna waxay ka mid noqon doonaan buu nabigu yidhi kuwa qaafiliinta ah haddaad jimcaha ay ku dhaafdhaafo aad u jarto waxaad ku biiraysaa ahlu khaflah haddaad aragto duul salaadii jimco oo la aqimay amase la aadimayo dukaanka weli sii iibiibinayo wada ogsoonow khafladii baa ku haleeshay calaamaadka khaflada lagu garto waxaa ka mid ah ay culimmadu yidhahdeen alistihaana bilmacaasi qofkoo agtiisa ay ku fududaato macsidu adhowaad iska toobadkeenaa macaynkan ee iska samey tan gabadhan iska salaan tan la si hadal waxaan samee halkan ka bax waxoogaaga ribada iminka doorka ka dambaad ka toobadkeenaya iska wad hal ma jira dunuubtii waaweynayd iyo macaasidii qofka la fududaada bini aadamkana ilaahay wuxuu ballan qaaday in la itixaami doono waxyaabaha calaamaadka ah waxaa ka mid ah qofka oo waqtigiisu lumo biduuni faa'ida raasamaalka ugu weyn qofka bini aadamkii haysta waa waqtiga waayo cimriga la sheegaya waa imisa 60 baan jiray 50 baan jiray 70 baan jiray waxaad sheegaysaa waa saacadaha kan jaaniska aad nolosha ku haysataa waa saacadaha kan waa raasamaalka xaqiiqiga waa raasamaal saacad waliba markay tagto waxa kale oo dhan waa la soo celin karaa isaga lama soo celiyo saacadii ku dhaaftay intaad ma soo laabayso wixii ugu weynaayay qofka bini aadamku haystay saxaabada waxaa la yidhahdaa waxay caan ku ahaayeen waqtigooday kaga shaxiixsanaayeen dirhamka iyo diinaarka inagu yacni lacagtaynu bukhala ku nahay waqtiga laakiin waad ogosha inaad iska sheekayso boodboodo waxa ka iska wado ama wax soo bix haddii lagu yidhahdo aad bad gacanta u xijiraysa iyagoo xooluhu qiimaha weyn may samayna waqtiga أحد الصالحين بقى واحد يريد مد بقى وحده وحوجا مرة بينا كل شيء كيسته شاف يرسل ويقول أرضه عن عد تشوش يعني عن عد هو يقص عطا طيب ما يقص عدا بقولي دردشة والرمى هيوية وقتها صعنية هذا درك توقفك ووقت يسوع وعدلك قلوا ميه وحنونك كم بحية qofka oo aanay la weynayn waxyaabihii uu ilaahay ku dhawaan lahaa subxaanahu wa tacaala qofka oo aan qur-aanku raadaynaynin iyo cibaadaadka kari
waxaasoo dhamme ikhwatii fi lcaqiida waa acraad ama symptoms ama calaamado gaflada lagu garto